dadka dhowr wajiiliyo waxa jira dhadhamara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا محمد إسماعيل حاجي كسودو جناكيغا إمراس. waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo calaamadaha xaasidka uu leeyahay. marka hore haddii aad ku cusub tahay channelka Imras waxaa laga codsanayaa inaad subscribe saarto gambaleelkana aad furato si aad ula socoto barnaamijyada aan halkan ku soo gudbino oo aad noqoto qofka ugu horeeya ee daawada. waxaan aad ugu mahadcelinayaa asxaabta boqolaalka dhaafaysa ee subscribe saartay barnaamijkeygana la socda, inkastoo usbuuciiba 2 mar ama 1 mar aan barnaamij soo dhigo oo aan badanaa aanan ku mashquulin youtube-ka iyo barnaamijyada aan soo dhigo oo aan ku mashquulo danahayga kale iyo shaqooyinka aan leeyahay. balse waxaan jeclahay mar walba asxaabteyda ama walaalahayga Soomaaliyeed in aan ugu faa'iideeyo waxa ayaga maskaxdooda kobcin kara waxna ka bedeli kara noloshooda. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij ku saabsan calaamadaha xaasidka uu leeyahay. xaasidku waa 2 qaybood. qaybta koowaad xaasidku waxa mid lagu dhashay oo qofka uu ku dhasho xaasidnimada. mid labaadna waa mid u keenta noloshii iyo wixii uu ku noolaa ama dhib ha soo maro ama waxyaalo kale ha soo maro uu kala kulmo. marka midda dabciga waa gooni. midda kale ee keenta wacyiga adag oo qofka soo maray ama uu ku soo koray waxa waaye qalbigiisa mar walba waxa ka guuxaya waxay tahay qofka kale asaagiisa in uu maxaa la dhahaa marin habaabiyo ama dibindaabiyo u dago mar walba. anigoo barnaamijka ku sii dheeraanayn oo soo koobaya waxaan u galayaa maxaa lagu gartaa qofka xaasidka ah. qofka xaasidka ah waxaa lagu gartaa dibindaabiyo, marin habaabin, waana mid ka shaqeeya gadaashaada. waa mid ka shaqeeya wixii aad habaysato isku daya in uu furfuro. waa mid mar walba isku daya wixii wanaagaaga u bedela xumaan. intaas waad fahanteen. qaybteedii labaad, qofka xaasidka ah waxaa lagu gartaa waa munaafiq. ku isticmaalaya 2 waji. marna wanaag ayuu ku isticmaalayaa markuu ku arko walaal see tahay fiican tahay alxamdulillah aad baan u fiicanahay wuu ku qurxinayaa kaale arag, he's the best. balse markuu ku dhaafo ama kaa tago ku ruuga ku cuna been iyo xasad iyo waxaan loo joogin kaa sheega. ma fahanti waa ay dhacda. qofka saddexaad, qofka xaasidka ah waxaa lagu gartaa in uu isku dirdiro dadka isagana dhigo qof caawinaad badan ama asxaan fala ama maxaa la dhahaa run sheeg ah ama isu furfura xogtaada adoo isku kaa furfura iska kaa dhigaya qof wanaagsan, iska kaa dhigaya qof asxaan badan oo wax ku falaya wanaag ku galaya. laakiin qofka noocaas ah hal wanaag marka uu ku galo 10 buu ka jiraya. asigoo halkaas wanaag uu ku gal ay ka tahay in uu ku ogaado waxa aad tahay. balse waxaan kaaga digayaa qof walba ha iska aaminin oo qof walba ha soo dhawaysanin. just qofka aad istaqaanaan ama aad isbarateen maanta ha u dhaafin seeta iyo fiican
hadduu external question uu ku weydiiyo aan wax dhibaato ahayn waa u sheegi kartaa, laakiin ha aaminin qof kaa wareysanaya qofkaas camal afkaaga ha u furan. waa qof dibindaabadeedaada iyo dhibaato kula jecel. qofka afraad, xaasidku waxaa lagu gartaa xiriir joogto ah oo ka badan sidii caadiga ahayd, isaga oo ay ujeedadiisu tahay in uu mar walba xogtaada iyo wax kaa cusub noloshaada uu ogaado. way dhacdaa, waxaad arkaysaa qof maalin walba kusoo wacanaya, kuu sheekeynaya, ku wareysanaya, just he wanna know or she wanna know waxa kugu soo kordhay maanta, si uu waxaasoo dhan kaaga furfuro hadhow oo xaqdi iyo xaasinimo iyo dhibaato uu gadaal kaaga abuuro. qofka shanaad, xaasidku waxaa lagu gartaa wax ka mid ah xan fara badan, mar walba ka sheekeeya dadka sharafta leh isaga oo dhaliil u jeedinaya. maalan anigu qof wanaagsan baan ahay, qof degan baan ahay, waad ila sheekeysatay, soo farahaaga iyo danahaaga iyo waxaad dhan markaan ogaado, I'm going to other person to tell waxaad maanta dhan aan ku weydiinaya, kaaga sheekeynayo. مثلا qofkaas qof xun waaye, qofkaan saan waaye. qofka marka noocaas ah iska ilaali oo ka fogow. qodobka kale ee lixaad haddaan u gudbo, xaasidku waa qof necab mar walba jecel inuu dab ka dhex shido. dad isjecel dab ka dhex shidaya, family iyo dad family isjecel dab ka dhex shidaya. مثلا family baad asagu aad asxaab la tahay ama waalidkoodii dadkooda si fiican isku dhex gasheen oo istaqaanan, wuxuu ka dhex shidayaa dab, wuxuu isku dayayaa in uu familka qof ka mid ah adiga isku keendiro. waa ay dhacdaa, laakiin waxaa loo baahan yahay waxyaalaha noocaas ah markaad la kulantid in aad ka gaabsatid, qofkaasna aad iska xirto barnaamijkiisa. dadkii wax beenta lagaaga sheegana qofkii dhibaato kuu geysto ama waxyaala caay ama waxa kuu geysta aad dhahdo walaal waa mahadsantahay, raalli noqo, oo aad ayagana u jawaabin, aad ka aamusto si ay u ogaadaan berito xaqiiqda ee ayaga kuu raaligeliyaan. balse mar walbo ha sugin in lagu raaligeliyo, adiga dar alla iskaga saar. qodobka kale, xaasidku waa mid xanuunsanaya oo ka xanuunsanaya nimcada ilaahay ee dadkiisa u qaybinayo. مثلا nimcada ilaahay dadkiisa u qaybinayo, maanta waa aad subaxii waad ka lahdaa, jacalna leyla libaasa jacalna nahaara macaashan. so every single day you are going to work, so maxaad raadinaysaa daily food, oo maxaad raadinaysaa lacagtaas maxaad ku raadinaysaa to change your life, to help your family, or you want to do to other things to your life. so kuma qanacsan waxa ilaahay adigu maanta ku siiyey, waxa uu jecel yahay mar walba wixii adiga maanta ay inuu asaga isku helo wax dhan, uu ka xaasidnimeynaya. xaasid noocaasna waa jira, iska ilaali. qofka xaasidku waa mid ka maqan tahay xasiloonida iyo farxadda. so you see a person who going alone, waa aragtay qof keligiisa iska socda. waa jiraan dad oo keligood iska socda oo markay fursadda leeyihiin asxaabtooda la jooga ama la baashaala, laakiin kan 24/7 waa cuqdadaysan yahay, mar asiga isla hadla, keligiis baa socda. waxaa waaye waa mid adiga xirxiran. marka qofka uu raba inuu dibindaabiyana isku furfuro, isku qurxiyo, isku jeclaysiiyo, soo dhaweeyo, guriga keena, laakiin markuu gurigaaga ku keenayo ama aad la sheekeysanayso, just you will know your background. fahante?
qofka xaasidka ah waa saaxiibka dhabta ah ee shaydaanka ama kaba sii xag jira oo shaydaanka ayaa la qaatay. waa qof xitaa markuu salaada ku jiro ka mashquulsan oo ka fakaraya siduu qof walaalkiisa u dhimrin lahaa ama u dibindaabyo lahaa ugu digi lahaa. waa qof waqtigiisa inta ugu badan ku lumiya baabi'inta iyo waxyaaleynta bini aadamka, balse mid warwalba ku fashilma oo dabinta iyo xumaanta uu sameeyo guulna aan ka gaarin. waa mid mar walba qofka saaxiibka dhabta ah shaydaanka. qof hadduu aragtay saaxiibka dhabta ah aad u malaynayso inuu saaxiibkaaga yahay, laakiin waa cadowgaaga oo gadaalkaa tooganaya ku cunaya. mar walba hadduu salaad tukanaya xataa ku fakaraya siduu adiga maanta uu dhibaato kugu geysan lahaa. shaydaankaa la qaatay. shaydaanka acuudu billahi min ashaytaan arajiim adihi kartaaba ilaaha uu ku sabtay, laakiin qofkan is your best friend soo dhaweysatay gadaalna uu kaa cunaya mar walba. waxaa waaye mid aad ugu fakara mar walba inuu dibindaabiye ku geysto. qofka xaasidka ah qaybta wanaagda u gudbo waxaa ku jira iminka waxaa ku yar iimaanka iyo cabsida rabbi. waxaa ugu fudud wax walba uu cagta ku marin karo wanaagga dadka. wanaagaaga iyo waxaaga dhan inuu dusha mariya hadduu isku dayo wuu marinaya, laakiin qofka caqli leh waa uu ogaan karaa qofkan in been laga sheegay ama dhibaato loo geystay. xitaa in uu ruuxda kaa jaro qofkaas way ugu fududahay. koob biyo ah kuma kabanayo. marka waan sii wada haddaan dhaho waxaa waaye waad ku caajisaysaan. barnaamijkayga maanta halkaas ayaan kusoo koobayaa. waxaana leeyahay meel walbo aad daafaha caalamka joogtaan, haddii aad ku cusub tahay channelka Imras waxaa lagaa codsanayaa inaad subscribe saarto una gudbiso asxaabtaada, gambareelkana aad furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee la socda barnaamijyada aan halkan kusoo gudbino. tan iyo intaan kulanka xiga aan ku kulmi doono waxaan kaaga tegayaa amaana Allah.